ergaaba qof damo gali karaa ma jiro cid damo ka soo bixi kartaana ma jirto kuwa ku jiraan kama soo bixi karaan intaas aan idin faray wadadaas ma furaanayso waa fariinta u dambayso aan diray qabno waa inay noqoto qabno waxa loo jiray wada ka timaada xamaro marka bari loo soo socdo la mari jiray hal qof ku badbaadaa ma jiray qabno waa amarka ana bixiyay waxa noqonaysaa in qofba meel ergaaba ka samaysto taasuna dunto in nin walba waxa uu aaminsan yahay ku haysto calanka aan sito oo dhabarkayga saaran waqooyi bari waa inta aan leenahay ergaab laga taagay oo ka shaqeynaya marka aniga tuuta waxa ii galiyay ma yeelayo wax dalkayga iyo dadkayga ka soo horjeeda mana bixinayo ilaa aan mir dalkeeda gaaro iyadoo si sax ah oo nin walba gidaarka soo taabto gobolka Sanaaganaale gobolka Soolaanaale gobolka Bari waan wadaagnaa anaga iyo Puntland waa noo kala bad gobolka Bari waa ogtahay xadka gobolka Sool waxa weeye kantaroolka Garowe shishadiisa xagga magaalada xiga ma rabno inaan xumayno oo lafta xaquuqno sida Saciid Cabdilaahi den u xaquuqayo inaan u xaquuqno ma rabno waa shakhsi muujiyay nacaybtiisii uu bulshada qabay iyo dhibti u hayay ummadda dhowhay warbaahinta way salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama ummadda Islaamkana waa salaamayaa salaanta islaamka ku salaamayaa cidii aan Soomaalinimada iyo wanaaga diidanayn khayr badan baan u rajaynayaa wixii muslimiin oo cadibana Ilaahay cadibaada iyo dhibta inuu ka qaado oo Falastiin uga horeysana Ilaah baan uga baryayaa inta markaan ka tago waxa geel loogu heesaa nin Israa'iil oo ceelka ku galay waa nin curadkii aan leeyahay ama ciid galay waxa jirta aniga 30 sano bulshada aan ka soo jeedo waxay aad bulsho maxaasiraysan oo sida Carabta iyo Yuhuud Falastiin u go'doomiyeen labada qolo oo qolada u heshiisay oo kale ba bulshada aan ka soo jeedo heshiis u ahayd alla waxaan ahaa deelinka wax badan arkaya wixii aan arkayeen waa waxa saaka jooga heshiiska kan Addis Ababa lagu galay 79 ka heshiiskan wax lagu galay Addis Ababa gudoomiyaha SNM xilliga wuxuu ahaa aniga abtigaygu Abdulqaadir Koosaar baa loo rajay wuu dhintay Allah naxariisto iyo Cabdilaahi Yuusuf markii dambe Cadda Muuse iyo Axmed Siilaan baa hadana dib soo nooleeyay heshiiska kan wuxuu ahaa Soomaaliya inay madax ka noqono iyo inay kharibnaato labada ayaan waxnoo ka dhaxayn inaynu nagu fadhino kursiga inaynu qasno waxa uu hadda yaala waa intii marka aniga tuuta waxa ii galiyay ma yeelayo wax dalkayga iyo dadkayga ka soo horjeeda mana bixinayo ilaa aan mir dalkeeda gaaro iyadoo si sax ah oo nin walba gidaarka soo taabto horta Puntland iyo Somaliland heshiis ma gelin waxa galay Saciid Cabdilaahi Deni iyo Somaliland ba heshiis ka galay bulshada Puntland waa aniga iyaguna waa aniga aniguna waxaan ahay iyaga isku mid baana bulshada reer Puntland la yiraahdo markaan ka soo qaado shacabka reer Puntland iyo anigu isku mid baana wax dhirfiya oo noo dhaxaya ma jiro haddaan loo maamul kala yeelano dad isku mid baana waan marna kala maarmayn waxa isu kaaya keeneen waa la yaqaan waxa uu yahay waa wixii markii dawladda Soomaaliya burburtay sidii loo kala soocmay baa leeyahay sidii loo kala soocmay dawladda Soomaaliya 91 markay dhaxday sidii loo kala soocmay baa leeyahay nin walba reerkiisii buu yahay waana ahaan doona marka Saciid Cabdilaahi Deni iyo baa galay iyo Somaliland walba Soomaaliya way ka maqnayd hadday wax tarayaan ama lagu aqoonsanayo ama wuxuu goynaysana Somaliland laba gobol bay leedahay oo degmooyin ka maqan yihiin labada gobol waxa weeye waqooyi galbeed iyo Togdheer
togdheer marka waxa uu ku maqan degmada eeda ugu weyn baa ka maqan oo buuhoodii hadday wax u jarayso iyo hadday dawlad noqonayaan iyo hadday Soomaali ka baxayaan iyo hadday Siciidani aqoonsanayo labada gobol bilay gobolka Sanaaganaal gobolka Soolaanaal gobolka Bari waan wadaagnaa annaga iyo Puntland waan noo kala badh gobolka Bari waa ogtahay xadka gobolka Sool waxa weeye kantaroolka Garowe shishadiisa xagga magaalada xiga mar rabno inaan xumayno bulshadayada iyo deegaankayaga kan Garowe iyo kan Laascaanood annagu waxba nooma kala aha mar rabno inaan xumayno oo lafta xaquuqno sida Siciid Cabdilaahi Dan u xaquuqay inaan u xaquuqno mar rabno waa shakhsi muujiyay nacaybkiisii uu bulshada nuqabay iyo dhibtu u hayay ummadda marka arinta heshiiska maxay soo kordhin kartaa maxay soo xumayn kartaa waxay soo kordhin kartaa ummadda jecelayd waxay xumayn kartaa ummadda jecelayd inay isnacdo waxaanu iska daynaynaa inaanu ku noqono waxay iska diidaysaa wuxuu noqonayaa wadada baran iyo ceergaabo u dhaxaysa ciidamada iyagoo arkabay furayd oo marba dac loo soconay mar horgal la maraa mar adeeg maro adeegna la kula dagaalamayo isagoo maraya oo aan ognahay oo jidno oo rasaasta boos looga soo dhiibay ayaan faraha ka qaadnay in wadadaas furnaato aan faraha ka qaadnay waxaanu la ka carareynayaan la oran waa dib wadayaal laakiin wuxuu yiri guntigii la furay haatan soo lama garwaxaysan hashi ilmi lagu celi hadii wuxuu goynay Siciid Cabdilaahi Dani 20ka bisha way xiran tahay amarkaaga bixinaya ana bixinaya anigu ku hadlaya afka reer waqooyi bari 20ka bisha wadadaas haday furnaato ciidamadana waxa ka rabaa 24ka saac ciidamada waliba qaybta sanaad 24ka saac oo inuu galay oo hadda laga bilaabo isbedel gobolka Sanaag inuu ka bilaamo baan ugu baaqay waxaan maqlay wasiirkii gaashaandhigga oo hadlay adeerta maamul goboleed baatay wasiir gaashaandhig ma ahayd meel baad mushaar ka qaadataa maamul goboleed wasiir gaashaandhig dawlad baa yeelata dawladna ma ahayd adduunku kuma aqoonsana Soomaalina kuma aqoonsana anna kuma aqoonsana waxaan ku aqoonsanahay maamul goboleed marka aan ku xaq dhowro حق دور بدن موجي maamul goboleed laba gobol ba ku aqoonsan reer Boorama ikhtiyaar bili waan arkaysan waxa ka taagan wabar suldaan wabar uu hadlay kamid maahay buu yiri qoy qalbi Somaliland kamid maahay Soomaaliya kamid maahay xaq buu u leeyahay inuu dulmiga ka fogaado saga waxaan leeyahay inka wasiirka sheeganay aan isugu nimaadno wadada aad leedahay ganacsi aan noo maraya أنا توتايج وأنا كشان الديار بانو إنا نماذج إمو أديكو أدو سوسيف كشان دقمة وكوجا هالكن الصاحب كأحمد على الدوحي عبد الله السوفي وكوجا من التري لما أنا وصلنا قان بين توك جالس سنة ما قرأت أحمد على الدوحي عبد الله السوفي من التري لما بين توك جالس سنة ينوي قان أنا وانا قان أنا السجون ما أنا وضد وفري وسير كشان عبد الله السوفي أحمد على الدوحي عبد فري سان ويسوي مننا والله وأنا أقتل لما جبهت باهيدن أنا من الترقي الصومالي أبارة إذا نجبهت باهيدن وحتى هاي وضع عصم مفرانس مفرين تقدم بيسون وفرين تقدم بيسون أندري وضع عصم وين النقطة قبنا وين النقطة قبنا وحلو رجلي وضع ختم هذا حمر ومركل بر اللصوص على المرجلي هل غرفة كبد بهذا ما تريد قبله وأمر كان بحري خرارك دبدي سبب معان في ماذا مرك خراري ماذا بمعان في ماذا خرطيه شيء وحشية عدي سليسي
جروب كهالك مرة سعيد عبد الله الدنيا وادري ورقدها وهذا الشال صو صار يبون ودري يا وحلا من وأرك وأنا قاعد صوت دري بيهاي مدة أمريكا يسمى ستاي وحلا يري إسرائيل بواحد البري إلى هاي إنه نقدر هالليه محام فوق قرنينا هدان تكنو أما ورث أدنو شيء رسول الله صدري بكل هذا محام فوق قرنينا إن الجنة إنه إلهي رالي النجاة ويقول إلهي مركز رالي ذكي هاي تذبح يقام بمضاح دين القناي وعقل حمان تكفق هذا إلهي مركز رالي ذكاء وح مضاح دين القناي وح مما عليك بيربا وحل الهجسين يا عبد الله يوسف يا عبد موسى وقرن إنسان خلاف الأحمري الهجسين عرفوا إن بالغ صور البصاص على سوق يعني هشيس كذي مركب ما هذا اللغة اللي محمود سليمان عبد موسى وحل سعيد تقول الدش الشام لأن عبد ياسين اللي يراقر نيل عبد ياسين بقول دي وتجي وحي ده أنا يا عبد الله أنا مدعي عنه هشيني هشيس كيجي ده مدعي عبد الله يوسف ريد اللوجو يا عبد الله يوسف وحي أنا قديش اسم الله عندي أنا هو محمود سليمان اسمه محمود عمر محمود تقول الدش شجاري عن ليه قبر عن اللي يسوي سوء بيجاه يستاني قاري ماشي يقول كين لهاي المية دي ويتي أنا بهشيس كم قررنا يو كان حياة ورسجلي يو فرع قبل لما كتشوجا أو ضد كسوق حيي لكن واحد قررنا يا هشيس كأدي إصلايسي بهشيس الأحمر وحنا كمان صوب حيان تصور كي عبد الله سعيد عبد الله الدين الشبينة ذا إرجاوه قال لنا ما كي يجو على الشمال الآن يجو يلعب على الستة ما نشقيه ما نكشقين دونه إرجاوه وحنا نقول إساء هو يطون برود كوربان كجهل وحنا نقول إساء ينقف بميل إرجاوه كسمة يسوتها سنة دنتو إني والبوحة وأمسيه هيكون هجت ما كان حين يصل غلط عالمك aan sito oo dhabarkayga saaran waqooyi bari waa inta aan leenahay ergaab laga taagay oo ka shaqeynaya inta ileeyna kuma haysan iyaga waxay lahayn doonaya iyagay ka bidhaamaysaa doondoon kayga ka shaqeynaya intay way lahayn haddii taa diidaan waxay gelaysaa ergaabo meel bannaan bay noqonaysaa sida gasan noqotay bay noqonaysaa إذا نكون على الميل نقول بنقول ماشي عرقابة كسمة سنة يا كسمة سنة نبين تولي عرقابة كسمة سنة فرنت وضم بيسا دريسا محمد فرنت وضم بيسا واندرا يا وحن ليه هاي المضى غير وقوي بري oo jira dadka dalkooda iyo dadkooda loo heshiiyay ee jooga albiskaad ee jooga meel kasta haddii yihiin dad damiir ku nool yahay inna wax damiira oo dadnimo oo jiritaan ay ku nool yahay ama ay hadhow rabaan intay shir yimaadaan inay ka hadlaan oo yiraahdaan waagi waxaasan qabseen waxaan ka rabaa inay yimaadaan deegaamadooda kuwa kale oo jooga jiida oo mahad celinaya dhibaatada badan oo la soo halgamayeen oo la soo jiifeen markii dagaalka labaad adduunku dhacay dawladaha waaweyn aad aragto barwaaqo soorka galay ciidamadooda ilaa 3 sano bay waxay ahaayeen iyagu iskood joogan oo waxay ilaalinayaan qarannimadooda qarannimadeennii way bislaatay waaj abaalkiina dhaqsaadu heleysaan laakiin waxaan leeyahay fariintii aan idin faray waliya ergaabo qof damo gali karaa ma jiro cid damo ka soo bixi kartaana ma jirto kuwa ku jiraana kama soo bixi karaan intaas aan idin farayaa